waayo markaan waxaan samayn doonaa str hadii jeer la saaro deerka dushiisa ama barandiyaasha ama meelaha balkoniyada waxa la saaro waayo markaas sidii caadada noo ahayd shape ayaan soo gashan doonaa marka koowaad waxaan tegaynay documents baan tegaynay document markaan tegaynay waxaan tegaynay section ama elevation saasaan deetana u marsanaynay afarta elevation dhexdooda mid kamid ah tusaalahan kale sida tan oo kale e1 ta ama sida e2 ga halka ilaa halkaas oo kale tusaalahan saaleeda ama xagga eeg dhinaca doontid dabeetana waxay noo soo baxaysaa e2 daas oo kale markay noo soo baxdo halkaas ay soo galaysaa markaa gasho dabeetana click buttons markaad click siiso sidaan oo kale kugu muuqanaysa marka imika tusaalahan oo kale waxaan sameynay fence security-ga ama fence security-ga hadii jeer taarka la dul saaro ee ka samaysan biraha oo ma tusaalahan oo kale column head kan oo kale aan samaysan xaggan kale caadi ah ama tusaalahan oo kale albaabkan oo kale marka dhamaantood isku process weeyaan shape-kooda ma kala duwan isku process baa loo sameeyaa sidoo kale shape-in soo gashanaa fail baan tegaynaa fail marka tagto deetana external content baad leedahay deetana basic external drawing deetana folder-kaaga baad tegaysaa marka tusaalahan oo kale imika waxaynu doonaynaa inaynu sameyno s waxa loo yaqaano s wata deetana okay waad siinaysaa okay markaas halkan waad click siinaysaa halkan markaad click siiso aad buu mar walba sawirku u yahay marka sawirku waa inaad yaraysataa dabeetana waxaan ku dhufanayaa tusaalahan oo kale arrow-ga waan highlight gareynayaa control iyo k ayaan tegayaa okay waan siinaya control k halkan baan deetana soo qabanaya saasaan u yareynaya marka in yar baan kasoo reebaya tusaalahan kale intaas oo kale waan yareeyay waan soo qaadanayaa halkan oo kale aan tusaalahan keenaya halkan markaan keeno waad aragtaa waa kan shape-kaygii shape-ka waxba iskama bedelin tusaalahan kale intaan 30 centi ama 60 centi ama 40 centi meelaha waa inaan ka weynaan height-keedan oo kale tusaalahan oo kale tan xagga height-ka ka eegaysa waa 0.25 waan yara weyneynaya marka kan baan click siinayaa deetana waxaan leeyahay scale baan leeyahay tusaalahan oo kale taas oo kale yara weyneynaya way haddii tusaalahan oo kale shape-ku uu saas oo kale ka noqdo uu ku raaci waayo control iyo k baad leedahay okay baad leedahay deetana halkaad markii hore ka yareysid waad ka weyneynaysaa imika halkaad markii hore saas inta kale saas ugu soo yareysay imika saas oo kale aad yara weyneynaysaa tusaalahan kale inahaas oo kale inta yara weynay waayahay cabirkayga markaan waan qiyaasayaa 30 hadduu noqdo waa okay waxba ugama baahni waayo waa 30 waxba mushkilad ma leh waa 3 dheer mushkilad ma laha just waa inaad ku tusoomaa doonaysaa loo sameeyo waxaan iga delete galay marka mid ka mid ah tusaalahan oo kale sawiraynaa mid ka mid ah ayaan sameynaynaa oo tusaalahan oo kale iska simple weeyaan dhamaantood waa isku wada mid kan oo kale aan doonayaa tusaalahan kale sawir kan koonahan sawiraya waxaan soo qaadanayaa marka design baan tegayaa morph baan tegayaa waa sidii loo sameynayay column head-ka ayaa kan loo sameynaya column head-ka sidii loo sameynaya marka kan centerkiisaan ka qaadanaya bartankan qiyaasta bartankii tusaalahan ka soo qaad waa inuu kaana kuu jooga deetana kaasaan ka soo qaaday halkaasaan saa soo maraya marka dhag kaas waxa weeyaan baalkii way toosan tahay halkaas soo maraya inta aad u yar baa ku jirta aad u kooban baa ku jirta halkaas oo kale tusaalahan ka qabanaysa aan waxba ahayn baa ku jirta aad baan weliba qalluucyadu taad ka yaraysaa qalluuca dib baad soo yara celinaysaa intaas oo kale way intan iyo qudheeda yar baa ku jirta aagta dooranaysaa way marka aagta mar walba taas laga doortaa taas waa straight line tan waa aag way straight line baa tegaysaa saas dooranaysaa way ilaa ka soconaysaa ilaa ka soo soconaysaa intaas waa straight intana waa straight intana straight ka soo qaad halkan ka soo qaad straight inta yar waa yara qalloocda way min halka ilaa halkaas aag yar ku jira intaas saas kale u qalloocinaysaa intan ku xigta yara toosan waa straight line way ilaa halka tusaalahan ilaa halkaas oo kale waa iska straight line way hay intan yar waa aagta dooranaysaa way saas oo kale aag dooranaysaa way halkan ilaa halkaas saas dooranaysaa tabnigaas dooranaysaa saasaad la raacaysaa just kuwii horena haddii aad soo samaysay kan waa easy weeyaan saasaad u raacinaysaa mar walbana waxaad ogaataa waxa aad eeganaysaa siday wax u dhacayaan iyo sawirku u socdo ayaad eeganaysaa deetana toos u soo noqonaysa toos markaa u soo noqotay halka ay iska jaraan oo line-ka straight line-ka aad arkaysid xagga hoose ka yimi iyo bahashada iska jarayaan ayaad eeganaysaa tusaalahan kale halka weeyaan haddii aad cabirku socotana 0.04 weeyaanba
okay waad siinaysaa deetan hoos baad markaa ugu soo noqonaysa marka waa inuu toos ugu yimaadaa kii okay waka okay waxaan dareemayaa inuu qalooc yar ku jiro waad aragtaa intaasaa ka dhiman intaasaad ku daraysaa marka intaa waad ku daraysaa shift baan hayaano shift aanoo hayaan saa u soconaya deetana halkaa kaafkiisaan ku qabanaya shift aanoo haya drag imika straight wuu ugu imaanayaa okay waad siinaysaa deetan okay markaa siisid xaggan hoose markaa ku dhufan maysid xaggaana ku dhufan maysid xaggaana ku dhufan maysid isaga laftiisa unbaad saa ugu dhufanaysa isaga laftiisa aad saa ugu dhufanaysa marka saa ugu dhufatid ayaa wuxuu ku siinayaa shape-ka noocaas oo kale ku siinayaa markuu kaa ku siiyo haddana kor baad u kacaysaa halkaas centerkaad ku dhufanaysaa tusaalahaan kale bartaas oo kale isaga dhufanaysaa deetana 360 baad ayuu ku siinayaa oo kale marka isaga imika ku revolve gareynaya F3 oo taabanaysa wadeegaysaa shape-kaaga marka waad aragtaa saas u ekaaday waa kaagii caadiga ahaa sawirra iyo kan isu eegay marka kan isagoo noocaas oo kale ayaad dul saaranaysaa aad markaa gidaarkaaga dul saaraysaa haddaad doontana shaqada waad bedelanaysaa mid adigu aad leedahay waad samaysanaysaa yacni waa procedure-ka ama sida loo sameeyo keliya tahay tusayay adigaa samaysanaya ama raadsanaya mid qurux badan qaybtana halkaasaan ku joojinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu